أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي الأمين الذي قال في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والصلاة والسلام على أفضل الخاشعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان وعشر كيني كوبنا يعني ومقعدرني كيف نخشع في الصلاة انتينو إلهي هرتاقنا هاي sidee baynu qalbigeena ilaahay ugu soo jeedinaa tabaaraka wa tacaala ugana soo jeedinaa mashquulka adduunyo iyo hawlaha inta badan inagu tacalluqa waxaynu ugu dambeeyay shalayto waxyaabaha asbaabta keeni karta qofku inuu khushuuco inay kamid ahayd yaani tahsiin qiraa'ati alqur'aan alkariim qofku inuu quraanka si wanaagsan u akhriyo waxaynu ugu dambeeyay نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن يزينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد للقرآن حسنا قرآن كمركز أخرية إنسان قرآن كالصوت كينا كونا جي عد كينا وإنه كوضا هذا اللي شاليته سيدا اللوحة قاجنا يا وحايتهي وحانا وعجبتنا رسولك عليه الصلاة والسلام inuu si gaar ah u amaanay dadka imaamiyada ah ee markay quraanka akhriyaan dadka ku daba tukanaya ay dareemaan in Ilaahay ka cabsanayaan tabaaraka wa tacaala taasna waa hibo gaar ah oo uu Ilaahay u siiyo tabaaraka wa tacaala qofku doono waa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam inna min ahsani an-naasi sawtan dadka waxa ugu cod macaan oo ugu cod fiican بالقرآن حق قرآنك الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله قفك مركا آد مقشان إساقو قرآنك أخريا آد أقادتان قلبك يسنو عبسك جرت وهنا عجبت وقادا إلهي قدرتي مركا نغيستو أي مدق دوبان رقا قارواد أويسا رقا قار نمكة لجعليد وهبه إلهي وسيوانا وحقفك قلبك يسكو تعلقا إمام بالغي أبا مركات صلاة آد كدبا تكتو إناد خشوع إيو الدرين بدن وكونا شو قفنا وحالغي أبا إناد بحصوصا إنو أخرية قرآنية إنك لا حديث كاسا وحديث صحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام سيدا وكوري ابن ماجه وصوصاري سيح الجامع أنا واكجرا لما قضب بينو مركا مانتا خشوع ذا كقبح ناريتي ذا بمعنى درسينا مانتا لما قضب أيوم بينو كورمينا oo khushuucda qalbigeena soo jeedin kara waxa kamida arinta ugu muhiimsan waxay tahay an ya'lama anna allaha yujibuhu fi salati qofku inuu qalbigiisa ku soo xaadiriyo oo uu ogaado in ilaahay u jawaabayo hadalkiisa ilaahay baa ku jawaabaya la hadlaysa cadamada ilaahay ka warrama rabbigii khaaliqaha ee raasiqaha allahi ku abuuray ku nimceeyay bari kortiisa aad tagaysay janna aad ka doonaysay hadduu ka waran ku jawaabayo adiguna aad wax kaleba ku fakarayso jawaabtiisaba aadan hadal haynin xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam bal ila dhageysta waxa nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam qaala allahu azza wa jal ilaahay baa wuxuu yiri wa xadiithul qudsi ama xadiithul ilaahi labadaba waa la yiraahdaa al xadiithul qudsi aw al xadiithul ilaahi إلهي بقى مركا وحو يري قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صلاة وحانو قيبي أنيقا يا أدون كيقا كالبر نص يا نص بانو قيبي
walicabdii maa sa'ala addoonkayguna wuxuu iska leeyahay wuxuu i weydiisto waa ballan ilaahay u qaadayo qofka addoonka ee tukanaya qalbigiisu nool yahay culimadu markay tilmaamayeen qasamtu salaata bayni wa bayna cabdi waxay culimadu ku fasireen aayaddaas xadiidkaasi inuu ka warramayo faatixada waayo qaybta dambe ayaa fasiraysa allah wuxuu yidhi faidaa qaala alcabdu addoonku markuu dhaho alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad oo dhan ilaahay bay u sugnaatay allaha uunka oo dhan barbaariyey rabbi marka la yidhaahdo saddex qadiyadood buu koobsanayaa isimka ilaahay oo rabbi ah ana allaha khaaliquk ilaahay inuu yahay ku abuuray ilaahay inuu yahay ka ku risaaqa ilaahay inuu yahay ka keliya ku maamula saddexdaa qodobba rabbi macnaha ismiga ilaahay ee rabbi bay ku guda jiraan marka ilaahay uunka oo dhan ayuu tabaaraka wa tacaala barbaarinaya binicmatihi addoonku markuu sidaa yidhaahdo ilaahay baa jawaabo ilaahay wuxuu ku yidhahdaa salaada dhexdeeda bal fiiriya ilaahay baa kuu jawaabay wuxuu odhanayaa xamadanii cabdii addoonkaygu waa i mahadiyey addoonkaygu waa ii mahadnaqay ilaahay baa kuu markhaati furaya tabaaraka wa tacaala qalbigaagii baa soo jeeday waxaad tidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay markiiba wuxuu ku siinayaa jawaab ah addoonkaygii waa i mahadshay faidaa qaala alraxmaani alraxiim labadaa isima qiimaha badan ee labaduba naxariista ay ku tusayaan mida ay tahay naxariista caamka gaal iyo muslimba ay wada gaadhaysa oo adduunyada ah midna ay tahay naxariista gaar ahaaneed mu'miniintu iska leeyihiin labadaba ilaahay baa bixiya tabaaraka wa tacaala halkaa markaad marayso maxaad soo xaadirsanaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariisihiisa iyo raxmadda ilaahay iyo waxa ilaahay uu kuu galladay iyo nimcada alle uu ku siiyey tabaaraka wa tacaala addoonku markuu sidaa yidhaahdo ilaahay baa u jawaaba ilaahay wuxuu yidhaahdaa athnaa calaya cabdii addoonkaygii waa i ammaanay ilaahay baa odhanaya tabaaraka addoonkaygii wuu i ammaanay buu odhanaya faidaa qaala maaliki yowmi ddiin marka uu addoonku yidhaahdo ilaahay uu u tilmaamo oo uu qalbigiisa soo xaadiriyo ku dhawaaqo ilaahay inuu yahay boqorka maalinta dambayse ee weyn maalinta la isxisaabinayo maalinta ummadda la kala soocayo maalinta xaalkeedu cajaa'ibka badan leeyahay maalinta ummaddu ay qaybsamayaan maalinta murugada iyo xanuunka badan maalinta mu'miniinta u farxadda badan xaaladda noocaasa qofka qalbigiisii waa tegaya wuxuu tegayaa qalbigiisu wuxuu aadayaa maalinta iyo xaaladdeeda xaaladdaa marka uu addoonku yidhahdo maaliki yowmi ddiin ayaa ilaahay wuxuu odhanayaa majadanii cabdii addoonkaygu waa i sharfay ayuu odhanaya faidaa qaala addoonku markuu yidhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahayow keliga ayaanu ku caabudaynaa cid kale caabudi mayno cibaado keligaabaa iska leh cibaadana waa magac caam ah oo guud magacaasi waxa uu soo kulansanayaa oo soo wadagelayaa wax walbo ilaahay jecel yahay oo uu raalli ka yahay oo hadal ama ficil ama wax qalbi laga rumeeyo ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa iska leh mid muuqatiya mid qarsoonba cibaado intaasay markaa tahay macnahaan soomaaliga waxaad odhanaysaa ilaahu keligaa baan ku caabudi ballan baad ilaahay la gelaysaa inaad keligii caabuddo wa iyaaka nastaciin ilaahu keligaa baan ku kaalmo weydiisanaya wixii dhibaataa wixii culaysyaa wixii rafaada wixii xaalada waxaan u baahanahay taakuladayda meesha aan dalabkeeda dhiganaya ilaahu waa xaggaaga iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka waxaad qaaday laba ballamood inaad ilaahay keligii caabuddo oo aadan cid kale hoos dhigin oo aadan daba wadin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa arrin weyn afka marka laga sheegayo way sahlan tahay laakiin waa noloshaada oo dhan in diin iyo islaamnimo laga helo qodobka labaad ilaahay keligii inaad kaalmaysato ida istacanta fastacin billah addoonku markuu ballantaad yidhaahdo ilaahay baa u jawaabaya wuxuu ilaahay odhanayaa haadaa baynii wa bayna cabdii
ولعبدي ما سأل تنوا بلن نور دحيسة أنيق يا أدون كي نجا دحيسة إنه كلجة يعبده وحو أبا هذا كلجة يويديستو كلجة إنه كلميستو وارين وين ياد كلميسنا يسامر كي حالة كنت ما الله كلجة إياك نعبد وإياك نستعين إلهي بأورني مركات تنوا بلن نور دحيسة أنيق يا أدون كي كدم إلهي وحوري يا أدون كي وحو إسكالي وحو يويديستو هل كاسا دعادي فاتحة بلاد ميسا مركاسات لدي اهدنا الصراط المستقيم إلهي وحاد نقو هنونيسا وآد نقو توسيسا وآد نقو عرابيسا وآد نقو كحيسا نقو نوليسا نقو دشا نقو سوسارتا جدك توسن الصراط المستقيم وإسلام نمدي أوردن ودينتي أوردن ومنهج كادم ميسترن وجدك عد ووددا وين دينع والبا لغلغيادو اي كمران لكن جدك وين توبيها وجدك اسلامنimada xagga iyo xagga toona aadan uga mirqsan sida dawacadana aadan u jeejeysan jidka toosan ee islaamnimada inaad ku carowdo oo aad cagta saarto ila aad janno ku gaadhoway markaasuu adoonku taamarku ilaahay weydiisto jidka ilaahay umada u nimceeyay baad markaa weydiisanaysaa dad jidka ayaa qaaday jidka waxa hore u falay oo u maray dadka ilaahay tilmaamay inay yihiin siraatal ladina an'amta alayhim ilaahu waxaad ugu toosisaa kuwaad u nimcaysay korkooda jidkaad ugu nimcaysay sababtiisay mareen ummad baa loo nimceeyay suuratu an-nisaa baa ilaahay ku sheegay dadka loo nimceeyay برواقة الدنيا برواقة آخره شرف الدنيا شرف آخره كرامة الدنيا كرامة آخره ضدك قاطي وضدك إلهي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله جدك هاينا مريو جدك إلهي ويدي سريسا وجدك أي مرين كو إلهي ونمعيي وأنبيادي إيا صالحينتي إيا شهدادي إيا صديقينتي رنتبضنا إلهي وحيد عيد لنا الرفيقو أو الراعو أو ودلو دي لمرو أو لغو دايدو أو وحويان للدرسو إياقا أو خير بدنا أقوانا أكسان هذه ضرب كاسات ديبانيسا إلهو أنبيادي يقول جدكو دي مركات سيدا تراهدو أياد واحد كما ينقريسا إلهي جد أي لما قال مرين وضدك فلاقوبي إلهي الدريقي سكال لحظي سلاد والبا إلهي بعد ويدي سري سعيد مرن كودا كادو يا جد كود يا دغن كود يا دبعد يا منهج كودا يا نرش كودا واكوه غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي وحن كامل قليا إن قاضوا كوا عروتي جدك أي مرين عرض أو كنتي وأنمنك يهودا يكوي باديوبي مركان على الد إلهي كل هذا يغلفت الكود وين لمن كدنا وحويان طريق إلهي بيكفل لاقوبين وأنمنك كريستانك وعلموا إليه يهودنا يقو علم له يا علم جي طورين وإلهي تبارك وتعالى وعمل فلواين قلنا كريستان كنا يقولون أقوم بلهين أو جاهلين أي وحي هذا عبادين بانو إسكايماننا وان عبادي سنينا مركاسي وحي لي مادين يعني وحيابه أن إلهي تبارك وتعالى آن جدين وان عبادهين سيدا درادت بوحى لإرادة أمة محمد ضدك علم قاله وكو عمل فلوايا علم قودا وحي شبهيان نمنك يهودا أمة محمد dadka aan cilmiga lahayn ee aan waxba doonin inay bartaan ee jahliga ilaahay ku caabudayana waxay waafaqayaan qolada luntay ee kiristaanka ama daaliinta loo yaqaano sida daraadda qofka muslimka waa inuu laba arrimood isku dayaa inuu cilmigii barto kuna amal falo ilaahayna uu ku caabudo wax cad iyo xujo iyo daliil iyo wuxuu garanayo waa inuu ilaahay ku caabudo tabaaraka wa taala inta qofku markuu yiraahdo إلهي وأجوابا وحو إلهي هذا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل تن
ducadan inaan ka ajiibo addoonkayga isagaa iskale jidka wanaagsan inaan mariyo oo kuwii loo nimceeyey ay mareen inaan ka duwo labada qolo ee yuhuud iyo nasaaro oo qolana loo carooday qolana ay baadiyoobeen addoonkayga iskale ilaahay baa u ballan qaadaya tabaaraka wa tacaala waliba ilaahay wuxuu raaciyaa walicabdii maa sa'al addoonkaygu wuxuu iska leeyahay wax allaale iyo wuxuu i weydiisto waa casharkeennii koobnaa ee 5 daqiiqo iyo maalintii sagaalaad ama fadhigeennii sagaalaad ee ku saabsanaa kayfa nakhshacu fi salaa allah inagu anfaco وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم